waxay dhaheen waxaa laga soo wacayaa saldhigga waxaana laga rabaa si dhaqso ah inaad u soo gaadho saldhigga isla markaasna saldhigga ayaa lagaaga baahan yahay anigu waxaan ku dhahay waa si wanaagsan isla markaas waxaan ku dhahay daqiiqatayn ayaan idigu imanayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada asxaabteeda qiimaha badan halkan waxaan ku soo gudbin doonaa qisadeeda qaybtii saddexaad qaybihii hore qisooyinkeena waxaan ku soo marnay ninkii darawalka ahaa ee wada inuu nakhiyaamay isla markaana uu noo diray meel jini degan yahay ninka darawalka aniga waxa uu sheegay inuu ballan la galay jinka isla markaasna uu ahdigoowna ka baxayn halkaasna waxaa loo diray saddexdii qof ee la socday isla markaana waxaan soo aragnay meeshii inuu dab ka kacay halkaasna waxaa ku baaba'ay dad fara badan siduu sheegay ninkii darawalka ah waxaa kaloon soo aragnay isla markaasna inaan anigu raadiyay dhakhtar halkaasna aan dhakhtarka wax walba ugu sheegay laakiinse dhakhtarku way rumaysan waayey qisadeena qayb saddexaad maanta waxay ka bilaabanaysaa iyadoo ninkii dhakhtarka aan ka dhaqaajiyey wakhtigaas dhakhtarku waxa igu lahaa daawo ayaan kuu qorayaa isla markaana waad seexanaysaa adigu nin xanuunsan ayaa tahay anigu albaabka ayaan ka soo baxay hadalkiisana maan dhegaysanin aad ayaan u xanaaqsanaa wakhtigaas dibadda ayaan u soo baxay anigoo cadhaysan waxaan aaday saldhigga booliska isla markaasna waxaan la hadlay nimanka xagga hore fadhiya ee askarta waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaad ii geysaan ninka CID-da si aan wax walba ugu sheego waxay ku dhaheen waa si wanaagsan hadda ayaan kuugu yeedhaynaa isla markaasna waxaan la kulmay ninkii CID-da maamulayay waxaan u sheegay wax walba oon soo arkay laakiinse wuxuu dhahay waxaasi wax la rumaysan kara ma ahan waxaa laga yaabaa inaad malaawaal waddo laakiinse wuxuu dhahay qof ayaan la hadlayaa isug si aan u kala caddeeyo waxaad sheegaysaa inuu run yahay ama se uu been yahay anigu waa si wacan baan ku dhahay isla wakhtigaas waan sugayey ninkii CID-da ahaa dibadda ayuu iga baxay telefoon ayuuna ku hadlayey waxaan ka ruursanaa anigu ma ku rumaysan doonaa mise waa ku beenaysan doonaa isla markaasna waa uu soo noqday ninkii waxuu dhahay waxa aad sheegaysaa waa been waxba kama jiraan ee adigu waxaa loo baahaya inaad isdejiso waxuu dhahay halkaas waxaan u dirnay askar laakiinse wax fogmay soo arag wax raadi xitaa kumay soo arag maxaa ka sheekaynaysaa baan ku dhahay askari waxaan ku dhahay aniga ayaa wax walba soo arkay sidee wax u jiraan maxaad ii rumaysan laadahay waxuu dhahay maya anigu kuma rumaysan karo maxaa yeelay adigu wax caddaymaa ma haysid sidaan kuu rumaystaa waxaana adiga ayaa iskuu sheekeeyey waxaan kaa codsanayaa inaad gurigaaga ku laabato xal kale anigu kuma hayo anigu wakhtigaas waan iskaga soo baxay saldhiggii isla markaasna aad ayaan u murugaysnaa waxaan isweydiinayay su'aalo fara badan waxaan lahaa qof kastooda arrintan la wadaagtaa muxuu kuu beenaalaysanayaa muxuu ku leeyahay waxaan wata waa mala'awaal wax kastana adigu indhahaaga ayaad ku aragtay isla markaasna guriga ayaan iska yimaaday markaan guriga saa u soo galay waxa ay soo wacay lambar laakiinse lambarka ma aanan garanayn waan ka qabtay waxaan ku dhahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh yaa tahay qofkay la hadlayaa waxay dhaheen waxaa laga soo wacayaa saldhigga waxaana laga rabaa si dhaqso ah inaad u soo gaadho saldhigga isla markaasna saldhigga ayaa lagaaga baahan yahay anigu waxaan ku dhahay waa si wanaagsan isla markaas waxaan ku dhahay daqiiqatayn ayaan idigu imanayaa waan soo dhaqaajiyay saldhigga ayaan imaaday waxaan la kulmay ninkii CID-da waxuu dhahay waxaa la waayey islaan waayeela isla markaasna nin iyo gabadh ayaa la waayey maalintii aad ii sheegaysay isla maalintaasi aan la waayey waxaan kaa rabaa inaad noo sheegto ama caddaymaha aad noo sheegto dadkaasi halka ay ka dhaceen anigu waxaan ku dhahay askari maalinta aan kuu sheegayay wax kasta ay dhaceen maalintaas ayay ahaayeen laakiinse adiga ayaa rumaysan waayey dadka halkaa ku gubtana iyaga ayay ahaayeen dadka aan la socdin iyaga ayay ahaayeen waxuu dhahay askarigii halkaas askar fara badan ayaan u dirnay xitaa aniga ayaa aaday laakiinse waxba kumaanaan soo arag xitaa meyd kumaanaan soo arag markaa waxaan kaaga baahannahay si aan u aadi karno waxaan ku dhahay dadka halkaa ku gubtay oo keliya waxay noo caddayn karaa ninka darawalka ah waxaan u sheegay oo kale inaan halkaas subax hore la aadin laakiinse habeenkii ayaa la aadaa waxaan ku dhahay waxaa inoo muhiima inaan helno ninka darawalka kaas ayaa wax kasta inoo caddayn karaa isla markaas askari waxa uu yeedhay nin farshaxana waxa uu dhahay waxaad u sheegtaa ninkii darawalkaasi u ekaa aniguna waan u sheegay ninkii farshaxanka waxa uu sawiray ninkii darawalka sawirkiisa isla markaasna gidaarada ayaa lagu dhajiyey meel walba ayaa laga raadiyey wakhtigaas waxay ahaayeen dad ka odhan kuwa raadiyey ninkaas isla markaasna nin ayaa soo wacay saldhigga waxa uu dhahay waxaan helay ninka la raadinayo askartu waxay ku dhaheen halkeed joogtay halkeen kuugu imanaa
ninkiina wuxuu ku dhahay waxaan ii soo dirayaa locationkayga halkaasna igu yimaada. Askari ayaa loo diray, ninkii darawalka ahaana waa la soo qabtay, saldhigga ayaa la keenay, isla markaasna waxaa la geeyey qolka dambi-baadhista. ninkii darawalka afkiisa ayuu xidhay, waxbana waa uu sheegi waayey. aniga ayaa wakhtigaa la yeedhay. ninkii darawalka ayaa la ag fadhiisiiyey, waxaana yimaaday ninkii askariga ahaa. waxaa lagu dhahay ninkii darawalka ninkan ma taqaanaa, laakiinse isagu ma uusan hadlin. aniga ayaa la weydiiyey, waxaa lagu dhahay ninkan ma taqaanaa. waxaan ku dhahay haa, ninkan waan aqaanaa, waa ninkii darawalka ahaa tagsiga nagu waday. askarigii ayaa waxau ku dhahay ninkii darawalka ahaa, haye waxaan kaa rabnaa in aad noo sheegto wax walbood og tahay, halka aad geysay rakaabkii kula socday iyo meesha aad ku qarisay. ninkii darawalka ahaa intuu si cadhala ii soo eegay ayaa wuxuu ugu dhahay, waad ka shallayn doontaa wax kastood maanta samaysay. soo hore kagamaan digin inaad arrintaa faraha la soo gasho, laakiinse nasiib daro hadda askartaya waad la wadaagtay. ninkii askariga ahaa ayaa waxau ku dhahay, oo haddaba waxaad u hanjabaysaa ninkan agtada fadhiya, islamarkaasna wax kasta kugu caddaynaya. hanjabaadda aad u hanjabaysa ninkan waad ka shallayn doontaa, ee waxaad noo sheegtaa wax walboo jira si aan adiga caawimo kuu siino. waxau dhahay ninkii darawalkaa, anigu waxaan ahay nin darawaloo iskaga shaqaysta gaadhigiisa. maalin maalmaha ka mid a aniga oo waddada maraya ayaa waxay qabtay koox jinniya. waxay igu dhaheen waxaan kaa rabnaa wakhti marka laga soo wareegaba inaad dad noo keento, islamarkaas aan cunno. sidaas ayaad naga nabadgeli kartaa, haddii kale adiga ayaa noloshaada waayi doona. aniguna waxaan ku dhahay waa si wanaagsan. marka uu wakhti ka soo wareegaba anigu waxaan ahaa mid u geeyey dad, islamarkaasna halkaas ayay ku cuni jireen. ninkii askariga waa uu yaabay, waxau dhahay, dadkaas halkeen ka heli karnaa? maxaa yeelay halkaas waannu tagnay oo cidna waan ka soo weynay. ninkii darawalka waxau dhahay, haddii aad subaxa hore tagteen halkaas waad ku khaldan tihiin, laakiinse raggan waxaa halkaa laga helay habeenkii. waxaan iga degayaa inaad halkaa tegin, maxaa yeelay halkaasi waa meel aad u khatar badan. ninkii darawalka ahaa isla wakhtigaas xabsiga ayaa loo dhaadhiciyey. anigu waxaan fadhiyey goobtaas, islamarkaasna waxaa ila hadlay ninkii dembi-baadhista ahaa. waxau dhahay, ninkan waa la xukumayaa, maxaa yeelay ninkan waa dembiile, waa sixiroole, dembi aad weyn ayuuna galay. anigu waxaan ku dhahay, maya askari, ha xidhina ninkan, maxaa yeelay ninkani aad ayuu cabsanayaa. waxau ka cabsanayaa nimankaa iyo kooxaha uu sheegay. waxaynu u baahan nahay inaan raadino qorshe aan ku tegi lahayn goobtaas, islamarkaasna kooxaha aan ku burburin lahayn. ninkii dembi-baadhista ahaa waxau wacay markaas sheekh. waxa uu ku dhahay, sheekhow waxaad ka warantaa kooxaha, bal waxaa nooga sheeg, waxaan doonaynaa inaan burburinno. sheekhii waxau dhahay, maya ha isku dhowaanina, maxaa yeelay nimanka halkaa degani waa dad masaakiina. halkaas ayay iska degan yihiin, wax dhibaataana inooma geystaan. haddii aanu hadda weerar ku qaadno, iyaguna isla weerar ayay nagu soo qaadayaan, ha isku dhowaanina haddaba. ninkii dembi-baadhaha waxau wacay wakhtigaas qolooyinka waddooyinka dhisa, islamarkaasna waxau ku dhahay, waddadaa ha la xidho, waddo kaloo cusubna ha la furo. maalintaa wixii ka dambaysay waddo kale ayaa la sameeyey, waddadaasna waa la xidhay. waddada meesha laga sameeyey kama aysan fogeen meesha ay jinku degganaayeen, islamarkaasna dadku ay mari jireen subaxii, habeenkiina waa ay soo mari jireen. halkaas habeenkii aad ayay u qurux badnayd, laydh iyo dhalaalaal fara badan ayaa ka bixi jiray. dadkii magaalada oo dhanna waxay ahaayeen kuwo ogaaday sheekada halkaas ka dhacday, islamarkaasna aad ayay uga cabsan jireen meeshaas. waxay dhihi jireen yaan la isku marin halkaas, yaan la iskugu dhowaanin, maxaa yeelay meeshaas waa meel aad u khatar badan. goobtani habeenkii aad ayay u qurux badan tahay, waxaad moodaa caasimadda adduunka ugu qurux badan. subaxii marka la gaadhin halkani waxay noqonaysaa meel aad u burbursan, waxaad moodaa in aan weligeed la degin halkan. dadka oo dhan marka ay marayaan goobtan aad ayay u cabsan jireen. waddadaasna waa la isticmaali jiray maalin walba, laakiinse qof kastaa marka uu marayo wadnaha ay farta ku han jiray, maxaa yeelay habeenkii halkani aad ayay u qurux badan tahay, maalintiina meeshan waa meel kharaab oo dundunsan. goobtani waxay noqotay goob caana, dadka oo dhan ayaa ku sheekaysan jiray, meel kastana waa laga hadalhayn jiray. waxaa dhihi jiray goobtii uu jinka degnaa, islamarkaa la marayana dadku si aayar ayay u mari jireen, iyagoo allah ka magangelaya balaayada ka dhacaysa halkan. asxaabay, anigu maalintaa wixii ka dambeeyey ma aanan isticmaalin waddada, maxaa yeelay anigu wax kasta oo ka dhacay halkaas indhahayga ayaan ku arkayey, islamarkaasna magaaladii ayaan iska joogay, umaan soo dhowaan. marka aan magaalada ka imanay waddo kale ayaan mari jiray. maalintaa wixii ka dambeeyey magaalada ayaan ka shaqaysan jiray shirkadaha dhismaha ee magaalada ku yaala, uma aanan safri jirin magaalo aad u fog. asxaabtayda qiimaha badan, anigu waxaan ahay cali, qisadeeduna halkaas ayay ku dhammaatay. haddii aad soo dhammaystay qisadayda, waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka ku soo biirto, islamarkaasna kambalaalka furato si muuqaal kastoo cusub uu kuu soo gaadho. halkani waa kanaalkeenna Qisa 24. waxaan soo gelin doonaa qisooyin aad u xiiso badan,
isla markaasna waxaa rajaynaa inaad noqotaan kuwa nala socda naguna dhiirigeliya in ay sii shargareeyaan leegtana ay siraan muuqaalada inta aan iskaga imanno qisada tan ku xigta qaybteeda koobaad waxaan idiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo